kuna wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid ah Faransiiska u yeertay safiirkiisa ka jooga dalka Turkiga kadib markii madaxweyne Erdogan uu dhigiisa Faransiiska ku tilmaamay inuu u baahan yahay in maskaxda laga baaro dhalinyaro aad u daayar oo Itoobiya ka soo jeeda oo lagu hayo Boosaaso kadib markii la soo qabtay iyagoo loo tahriibinayo dalka Yemen Talyaaniga oo amray in barito laga bilaabo la xiro 6 maqribnimo maqaayadaha si looga hortago in mar kale uu coronavirus soo laba kaclayo qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta aan ku bilownay magaalada Boosaaso waxaa waqtigan lagu hayaa dhalinyaro aad u daayar oo ka soo jeeda wadanka Itoobiya kuwaasi oo la soo qabtay iyagoo loo tahriibinayo wadanka Yemen dhalinyaro iyaguna Soomaaliya ayaa tahriibkan lagu soo qabtay waxaana dib loogu celiyay koonfurta Soomaaliya oo ay ka yimaadeen wariyaha VOA Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso magaalada Boosaaso waxaa ka socda howlgal looga hortagayo tahriibinta caruurta da'doodu ka hooseyso 18 sano kaasoo ay iska kaashanayaan wasaaradda haweenka Puntland hay'adaha UNICEF IOM Tadaamun iyo laamaha ammaanka Boosaaso isduwaha gobolka bari ee wasaaradda haweenka Puntland ayaa Nuur Muuse ayaa qubanaha VOA u sheegtay in 124 caruur ah oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan ay dib ugu celiyeen waalidiintii dhalay sanadkii 2019 ee tagay iyo sanadka 2020 ee aynu ku jiro Itoobiyaan waxa way 35 ilmaha aan waxaan ku raadayay celinay Soomaalidana waxa way 89 oo dhamaantood jilib iyo jamaami iyo jawhar ka kala yimid koonfurta Soomaaliya oo aan dadka dhalay u celinay meelaha aan ka helno inaan dadkaas badbaadino oo naga soo gaaraan waxa kamid ah immigration-ka waxa noo keeno booliska waxa lagu qabtaa immigration-ka checkpoint-yada isduwaha ayaa sheegay inay geeyaan caruurtan 4 guri oo ku yaal magaalada Boosaaso waxaana iminka guriyaha ku sugan 21 caruur ah oo dhalashadoodu ay ka soo jeedo dalka Itoobiya yaal Soomaaliya hadda ku jira safe house ma jiraan sababtoo ah labadii 5 gabdhood oo dambeeyay waxaan ku celiyay waxaan geeyay Muqdisho oo dadkii dhalay baan u geeyay waalidiintoodii baan u geynay hadda waxaa noo jooga 22 Itoobiyaan ah oo 5 ay tahay gabdho dhawaana waxaan rabnaa inaan u celino Itoobiya hadii Ilaahay yiraahdo ana wala kaashana hay'adda IOM magaalada Boosaaso waxa ku yaala 4 safe house afartaas safe house waxa iska kaashada wasaaradda horumarinta haweenka arrimaha qoyska hay'adda Tadaamun iyo hay'adda UNICEF oo iyadu fanka bixisa waxa loo diyaariyay hooygii cunadii shoppingkii caafimaadkii ilaa iyo safaradoodii tigidhadii markii lagu celin lahaa goobihii ay ka yimaadeen inkastoo maamulka Puntland iyo hay'aduhuba ay xoog saareen ka hortagga caruurtan la tahriibinayo ayaa haddana waxa muuqata inay wali socoto tahriibinta caruurtan oo la sheegay in laga talaabiyo badda gacanka cadmeed si loo geeyo dalka Sacuudiga Faadimo Yaasiin Jaamac qubanaha VOA Boosaaso Faransiiska ayaa dib ugu yeeray safiirkooda wadanka Turkiga Sabtidii shalay kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in dhigiisa Emmanuel Macron uu u baahan yahay caawimaad maskaxeed oo ku aadan aragtidiisa muslimiinta xanaaqa iyo aflagaadadu ma ahan hab la qaadan karo ayaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay Macron hogaamiyaha Faransiiska ayaa bishan ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah gooni-u-goosyada Islaamiyiina uu aaminsan yahay inay la wareegayaan bulshooyinka muslimiinta ee ku nool wadanka Faransiiska waa maxay dhibaatada uu qofkan la yiraahdo Macron uu ku qabo muslimiinta iyo islaamka Macron wuxuu u baahan yahay in maskaxda laga baaro oo laga daweeyo sidaasi waxa khudbada ku jeediyay Erdogan oo ka hadlayay magaalada Kayseri ee bartamaha dalka Turkiga iyo Faransiiska ayaa labaduba xubin ka ah isbahaysiga military NATO laakiin waxay isku khilaafeen arrimo ay ka mid yihiin Syria iyo Libya xukunka badda ee bariga Mediterranean-ka iyo isku dhacyada Nagorno-Karabakh dhinaca kale dunida islaamka ayaa waxa sare u sii kacaya baaqiyo ku aadan in la qaadaco badeecadaha Faransiiska kadib markii madaxweyne Emmanuel Macron uu cambaariyay islaamiyiinta wacadna ku maray inaanu ka tanaasuli doonin sawir gacmeedyada loola jeedo Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee wasaaradda arrimaha dibadda ee Jordan ayaa cambaaraysay si socoshada daabacaadda sawir gacmeedyada loola jeedo Nabi Muhammad
iyadoo loogu mamarsiyoonayo xorriyadda hadalka iyo isku day kasta oo faquuq iyo marin habaabina oo islaamka la xiriirinaya argagixisada. wasaaraddu si toosa uma cambaaraynin Macron, hase yeeshee xisbiga dhaqdhaqaaqa islaamiga ee Jordan ayaa ugu baaqay madaxweynaha Faransiiska inuu cudurdaar ka bixiyo hadalladiisa, waxaana uu ku booriyey shacabka Jordan inay qaadacaan dabeecadaha Faransiiska. qaadacada noocaas ayaa goor horeba ka socotay dalalka Kuwait iyo Qatar. warar ku saabsan Soomaalida Kenya ayaa inoo soo socda, balse marka hore waddanka Talyaaniga. dowladda Talyaaniga ayaa maanta oo xada waxay amartay in la xiro maqaayadaha iyo baararka ilaa iyo 6 maqribnimo. sidoo kale dowladdu waxay amartay in albaabada la iskugu dhufto goobaha jimicsiga dadweynaha, shaneemooyinka iyo barkadaha lagu dabaasho si loo hakiyo cudurka coronavirus oo mar kale soo laba kaclayay. talabooyinkaasi oo dhaqan galaya Brito Isniina waxaa ku heshiiyey ra'iisul wasaare Giuseppe Conte iyo maamulada gobolada, waxaana amarkani uu yimid kadib 2 habeen oo mudaharaadyo ka socdeen Naples iyo Rome oo looga soo horjeeday bandow lagu soo rogay gobollo dhowr ah toddobaadkii hore. xukuumadda Rome iyadoo ogsoon qarashka faraha badan ee lagu waayo in la xiro dhaqaalaha, waxay sheegtay inaysan doonaynin in lagu noqdo bandowgii weynaa ee la hirgeliyey markii cudurka coronavirus uu soo gaaray waddanka Talyaaniga. amarka soo baxay ayaa dadka ku dhiirigelinaya inaysan dibadda u bixin oo ay xadidaan xiriirka ay la leeyihiin cid kasta oo ka baxsan qoyskooda. laakiin amarku ma soo rogayo bandow qasab ah ama xiritaan waddanka oo dhana, waxa uuna oggolaanayaa dukaamada iyo ganacsiyada badankood in ay sii furnaadaan. mid ka mid ah ardayda jaamacadaha ee Soomaalida waddanka Kenya ayaa ku biiray shaqaalaha dowladda hoose ee dhulka nadiifiye magaalada Nairobi. Maxamed Cabdullaahi ayaa VOA waxa uu sheegay inuu yahay qofka kaliya ee Soomaaliya ee shaqadaasi qabta, isagoo dhalinyarada ku dhiirigeliyey inay shaqo kasta qaban karaan. Qadar Maxamuud Xareed, wariyaha VOA, ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Nairobi. kumanaan dhallinyaro Kenyaan ah ayaa xilligan ka faa'iideysanaya barnaamijka nadaafadda qaranka oo ah mashruuc shaqo abuur ah oo uu dhowaan dalka ka hirgeliyey madaxweyne Uhuru Kenyatta. Maxamed Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dhallinyaro Soomaali ah ee waxbarashadoodii jaamacadaha ku jira ee haddana shaqada nadaafadda qabanaya. Maxamed wuxuu sheegay in markii uu shaqo ka waayay xafiisyada dowladda iyo kuwa ganacsiga ee Soomaalida ah uu door biday inuu shaqadan qabto. dhibka waxa waa jiro Soomaalidii horto in adeer iyo abti iyo reereer ba hadda la soo qoraya. shaqaalihii badan ay Garissa loo ka soo qaad iyo suuqeena Soomaalida ay ku badan tahay. hadda aadid waalid iyo inagu gacan qabto mooyii shaqo wax ka qoray ma arkiis. marka derbi jiifna ma noqon kartid oo nin oo reer iyo wax ku tashanayaan aad tahay. marka waxa way shaqo inaad raadisid horta qasab waa in Soomaaliya aad tahay magaaladan la joogo shaqo la'aan lama joogi karo. haddii oo qof ku tirsanay shaqo inaad ku tirsatid waa. marka anigoo iska wareegay waxa maqlay warqadaha la qaybinayo oo shaqooyin baa jira lagu dhahay. meesha jiifka dadka loo qoray lagu dhahay. meeshii aan isdiiwaan geliyay hal qof oo Soomaali uma tagin, laakiin Soomaali kaliya marka arko shaqadan waa iska adkaysta oo ruux kale oo moraal ku sii waad u baahan tahay Soomaaliya badan aad arag. nolosha adag ee ka jirta magaalada Nairobi darteed waxbarashadiisii heerka jaamacadda weli ma uusan dhammaynin Maxamed, laakiin inkastoo uu weli maskaxda ku hayo riyadiisii iyo hamigiisii ahaa inuu ka dhabeeyo horumar uu noloshiisa ka gaaro, haddana waxa ay nolosha adag ay ku riixday inuu shaqaysto oo uu dhexda u xirto si uu uga gudbo xaaladda adag ee dhanka nolosha ah. dhallinyaro badan oo Soomaali ah isla markaana shaqo la'aan ah ayaa ka faana shaqada nadaafadda, balse Maxamed wuxuu ku boorinayaa in dhallintu ay shaqaysato intii ay dad kale ku tiirsanaan lahaayeen amaba ay fadhi ku dirir ku jiri lahaayeen. yarta waxa ku dhiirigelin lahaa inay suuqa fadhi ku dirir u fadhiisanin, magaalooyinka ay iska fadhiisanin, dawladdu intay ku biiri lahayn shaqo walba aragtid inaad qabatid. ninka ragga ahayo shaqada adkayso inaad meel walba ku adkaysataan jeclaan lahaa ninka ragga Soomaaliga walaalkii ahaa. Maxamed Cabdullaahi shaqada nadaafadda ee uu Nairobi ka hayo waa mid dhiirigelin u ah dhallinyarada kale oo markay arkaan ku dayan kara, fadhigana ka kici kara, waxna qabsan kara. Qadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi. haatan haddii aan jaleeco wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha waddanka Spain waxaa dhacay xalayto kulankii ugu weynaa ee dalkaasi ka dhaca
ciyaarta loo yaqaano El Clasico ay ku loolamaan kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona. labadan kooxood oo ku kulmay guriga kooxda Barcelona ee Camp Nou Stadium ayaa qaybtii hore ku kala nastay 1-1 walow kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay dardar ciyaarta la soo gashay haddana fursadaheeda kama aanay faa'iideysanin laakiin qaybtii dambe ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Barcelona 2 gool ayaa laga dhaliyay oo ciyaaryahanada Sergio Ramos iyo Luka Modric ayaa labada gool ee guusha u keenay kooxda kubadda cagta ee Barcelona u dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi iyo xirtiisa Barcelona uma aanay suuragelinin in ay wax guul ka qaataan kooxda gurigooda timid ee Real Madrid dhinaca kale waxaa macalinka kooxda kubadda cagta ee Barcelona Koeman soo koraya culays fara badan oo kaga imaanaya taageerayaasha dad fara badan dhinaca kale waxay leeyihiin ciyaaryahan Lionel Messi sida isaga iyo kooxdiisu ay isugu dhaceen uma muuqdo xidigii la yaabka lahaa ee dunida iyo difaacyadaba ka waali jiray si kastoo taaba ciyaaryahan Lionel Messi iyo kooxdiisu guuldaro xanuun badan oo El Clasico ah ay gurigooda ku dhadhamiyeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford waxay habeenkii xalay ahaa goor dambe kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Chelsea kulankan oo taageerayaal fara badan ay ka dhursugayeen ayaa labada kooxood waxay isku dhaafi waayeen eber iyo eber oo wax goolala iskama aanay dhalinin labada macallin ee culayska faraha badan u saaran yahay ayaad moodaa maalmo soo socda inay ka sii badbaadayaan in ay shaqadooda waayaan laakiin labada kooxoodba waxa ay soo bandhigeen kubad qurux badan iyo fursado ay guul ku keeni kareen sidoo kale kulan xiiso badan ayaa garoonka Anfield ee magaalada Liverpool waxa uu ku dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Sheffield United kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo gool laga hormaray ayaa iyadu waxa uu suura gashay inay 2 gool la timaado isla markaana ay ciyaartoodu noqoto 2-1 oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Liverpool kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa kulankii habeenkii xalay ahaa waxa garoonka u soo galay ciyaaryahan Alisson goolhayaha ay ku dhaartaan oo isagu kooxda dhaawac kaga maqnaa laakiin ciyaaryahankii lafdhabar ku ahaa dhinaca daafaca Van Dijk ayaa isagu muddo garoomada ka maqnaan doona daawadayaal guud ahaanba barnaamijka qubanaha maanta inta ayaan ku soo gabagabeynayaa intaynu mar kale dib u kulmi doono waa Maxamuud Mascad iyo dhammaan baabada qubanaha wadile sida iyo nabad gelyo